Soomaaliya jirta cadawaa hal waa shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laay oo 14 Oktoobar maxaan ku raadayay dadka maxaan ku laay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaya ki qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyay dad uu ijaaray meel uu ka keenay lacaga lagu bixiyay dhamaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneer oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha على ديرها مالها بقبقلايا شيطانك iyo hebel deeriyaha kasi mujrimka kale oo kasi weyn bangiya baas ugu ma jirto baasadeena waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dambiila baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray ki bixiye dambiila ma aha waaye qofka loo sheegayo oo aqligiisa oo aqbali karo dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaadan dhiibi lahayn ninkan qarax isku xiray ma heli lahayn adiga waa mid ka weyn kan lacagta dhiibaayo waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninka wuxuu qarxiye ma heli lahayn hadaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahay yaa haayo abu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomin taas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishaligtood qaar iska tuur noqotaa meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii Allah isaad ku badbaadi kartid aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaar uma gumaystaas sharciyan meel aad uga banaanta malaha naftaydan badbaadinay marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku iraadaayay aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo hayst cudurdaarna uma laha mandiq meel ay ku salaysan tahay xigmad ay saaran tahay male diin ma aha aqli ma aha wax ay tahay lama yaqaan aniga shabaaba idilaayo si uu idin laakiin qaraxa oo zooba dadku kula laay baasidiisi aan dhiibaa dadka Soomaaliyeed oo meel ka soo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunyo saas lagu ma raadiyo aakhirana iska dhaafbo maanta waa ku celcelinaa Soomaaliyada maanta joogta ee Ilaahay dadkii noolaay oo zamanka jooga annaga inteenani intana la mida oo Ilaahay naga dhigay hal cadaway leedahay waa hal cadawgaas shabaaba la yiraa macnaheeda kan qarax sameynaya kelima shabaab kalkaal baasabixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar u soo iibi baabuura ka sii iibso baasan ka helo hadda xagga ka dhac inta yeel walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal ha noqonin cadawaa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd nahnu nahkum bidhawaahir wallahu yahkumu bisarair waxa qalbigaaga ku jiro markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano laakiin anaga la hadashaa u jeednaa shabaab kale la hadlale Soomaaliyeed walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distance ha laga fogaado 2 kilomitir ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado hala dhaqmin hala macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tagin meesha uu jooga joogsanin la naftaada ba qatar ku jirtaba meesha uu jooga hada joogto in lagu duqeeyo ba qatar ugu jirtaaba iyo in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxay ku jirto waa u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninaynaa waa uga aqal celinaynaa وانا ugadigayna cudurdaar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisa loo haysto saar qor dheer la isaga tiraha leeyahay qofba shabaab tuumadiis ay soo maxkamadiisu ma wallahi ninka waa loo yar waa ku qasbanay maxkamadiisu tagay ahlan wa sahlan shabaab waa meesha waa ka baxo cudurdaar ma lahan ana la igu imaa karin
saraakiisha amnigan loogu tegi karin ninkii ugu taga sagaraashinka amaroon waa u sheegna haddana waa ku celinaynaa ninkii nin shabaaba daba socdaayo waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yidhahdaaye walax kale ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiri ninka daba socdo waa la dulminaa maahanoo la dulmi maa meeqaa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geeyey waxba inta lagu waaya la soo daayay socda la yidhi oo beledkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbalaynaa juhdi iyo dadaal ayagaa laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ah hawsha ka shaqayso laakiin nidaamka sharciga waa maraynaa noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci a maraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaad ag joogto daraaddeed by the time waktiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beerdaraysay xuquuqdaadii ogow waa nahandadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaali karta maahan oo dalka dhammay kula qabo balaayo laysla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa taadiidsan caqiidadeenna aan ilaalino maalintaad dhima laheedaad dhimaneey walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dibdhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dibdhigi maa bes nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yarta aan laanahay wax yar inaan dhiiranno aan laanahay aan dhiiranno ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis layskuma hayo yay nagu dheeraanin le waktigii oo